aniga markaan yaraa aabihii wuxuu igu dhihi jiray wax kasta adduunyada aa heli kartid maalin way kaa tegi karaan guri haddaad leedahay gurigaaga waa lagaa dhici karaa ama kaa burguri karaa haddii lacag meel ay ku taalo waxaa laga yaabaa in aad weysay laakiin waxaa baratid wax kaa qaadan karo wax lagaa dhici kara ma aha wax lagaa burburin kara ma aha so waxbarasho waa wax muhiim ah waxa kale ay u fiican tahay in wax la barto waxa waaye qof kasta wuu kula sinaanaya waxaa laga yaabaa midab ahaan dadka inayna wada sinayn waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan dadka inay wada sinayn waxaa laga yaabaa diin ahaan dadka inay wada sinayn laakiin waxbarashada waa waxa keliya oo qof kula sinaayo soo maaha adiga iyo aniga haddaan isku aqlinahay aniga wax markaa dhaadhacsiin kara adiga inaan wax ku dhaamo because adiga fikradaadii iyo caqligaagii aniga ila sameeyaha ama inaad iga caqli badnaatidaa laga yaabaa khadra cabdi oo ah maamulaha iyo mulkiilaha xarunta waxbarasho ee Shaafici ayaa ka warbixisay iskuulka inta uu furnaa iyo waxyaalaha uu ku soo kordhiyay ilmaha Soomaaliyeed ee waalidkood u soo hayaamay qurbaha. Magacaygu Khadra Cabdi, maamulka oo Shaafici Tutoring and Homework Help Center oo ku yaalo magaalada Hopkins, Minnesota. maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama waxaana soo booqatay walaasheen Congresswoman Ilhaan Cumar iyo tiimkeeda Mr. Ali Ciise, Mr. Aydruus Osman iyo inta kale. meeshaan xaruntan waxaan furay Shaafici Tutoring 2015 maantana waa 2020. meeshaan waxaan u furay baahi inay jirto ilmeen inay u baahan yihiin meel laga caawiyo xagga homework iyo reading iyo writing. baahidaas maadaama hooyo ahay waxaan ogaaday ilmaheena inay u baahan yihiin macallimiin caawiso galbihii markay iskuulka ka yimaadaan. booqashada Congress Ilhaan Cumar ayaa waxaa sidoo kale ka mahadceliyay macallimiinta kale ah Mahdi Cilmi oo ku magac dheer Xayle iyo Maxamed Aadan Ciise iyagoo bogaadiyay sida ay bulshada degan degmada Shanaad iyo oo ay Soomaalidu ka mid tahay uga warhayso. waxaan soo dhaweynayaa gabadheena oo Congress-ka Ilhaan iyo inta la socota marka ugu horeysa aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaa maanta noo timid oo soo booqatay meeshan centerkan la dhaho Shaafici Tutoring and Homework Help Center inaan soo booqatay. waxa aan halkan rabaa inaan marka u horeysa aan u mahadceliyo dhammaan shaqaalaha kruuga iyo dadka halkan keenay TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo maanta xafladan soo tabinayay oo aan ku martiqaadnay Congresswoman Ilhaan Cumar. booqashada xildhibaanad Ilhaan Cumar ay ku soo booqatay iskuulka Shaafici iyo Soomaalida degan magaalada Hopkins ee gobolka Minnesota ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay ka harsan yihiin maalmo qura doorashadii dalka Mareykanka oo dhan 2020